سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحديث السابع وعن سوقارني حديث كتضبات عشر كلحات كمدة هاي كتابك الأربعين النووي. حديث كان تضبات وحاوري صحابي كنيديس ليلى أبي الرقية magaciisana la yidhaha tamiim ibnu aws loo nisbeeyo daar saxaabigan waxaa lagu kuniyeeyaa la yidhaha abu ruqaya maxaa dhacay gabarta ruqayo la yidhaahdo cunugaan ahayn ma dhalin waxaa loo nisbeeyaa halili jadkiis oo la dhihi jiray addaar ibnu haani waxaa kaloo la yidhi waxaa loo nisbeeyaa makaan loo aqaani jira daarayn meeshaasaa loo nisbeeyana waa la yidhi mid oonay ahaataba waxaa la yidhi tamiim ibnu aws wuxuu soo islaamay sanadii 9aad ee hijriyada aayadihii qur-aanka yaa ayuha aladiina aamanuu shahaadatu baynikum idaa xadar iyo fain cuthira calaa annahuma istaxaqaa ihma asiga iyo cadday ibnu badaa waa markii kuwii ay ku soo degatay sanadii 9aad asoo soo islaamay ayaa waxuu ka mid noqday asxaabta nabiga kuwa ugu caansan kuwa ugu fadliga badan rasuulka ilaahay ayuu dagaal la qaaday duulaan la qaaday waxuu ahaayaa layni marka saaxibu diinin wa qiyaamin wa qiraa'ah ahludiin qiyaamuleyl badan habeenka cibaado badan qur-aan akhrin badan waxaa la yidhi hal ragco ayaa la arki jira soo 114 ku khatimay salaada markuu u istaago wuxuu soo bilaabaa baqaro ilaa birhabinaas hal ragco isagoo istaagiisa ka dhameeyey waxaa la yidhi markii magaalada madiino ou soo galay waxau yimidaa la yidhi masaajidkii nabiga sala allahu calayhi wasalam nalalkan iyo waxaan hadda ma jirine faynuusyo la iftiimiyo ayuu masaajidka keenayaa la yidhi iyo xirko lagu xiro iyo saliidii shidaal looga dhigi lahay faynuustaas oo ay ku iftiimi lahaaday waxuu ka laadlaadiyaa la yidhi marka tiirarkii masjidkii nabiga ayuu ku xiray masaajidkii dhammaan isla iftiimay rasuulkeenna sala allahu calayhi wasalama ayaa waxau dhahyaa la yidhi saxaabigan nawarta masjidanaa nawara allaahu calayka fi dunyaa waalaakhira masaajidkiina ayaad nuurisay ilaahay adduuniya aakhira ha ku nuuriyo marka dadka masaajidda ilaahay wax u qabta haddii ay tahay nalalka haddii ay tahay biyaha haddii ay tahay dad ku bixiya nadaafadda masaajidka wax ku bixiya iyo haddii ay tahay dadkii dhisay dhammaan ducadan ayaa ay ugu duceeyaan culammada ahlu khayrka ee yaqaana rasuulku markaasu wuxuu dhahyaa la yidhi amaa wallaah low kaana lii ibnatun la ankaxtuhaa gabar hadday ii joogi laheeday tamiim ibnu awsow waa kugu nikaaxi lahay wanaagga iyo akhyaarnimada ilaahay uu ku siiyey markaasaa nin saxaabada nabiga ka mida wuxuu dhahay yaa rasuulallaahi ana usawijuhu binti ibnati ilaahay rasuulkiisu anaa gabadhayda ku nikaaxinaya marka waxau lahay saxaabigaanu qiso aada u dheer oo cajo badan in shaa allahu tacaala taariikhda saxaabada si gooni ayaan uga hadli doonaa tamiim ibnu aws marka waxaa la yidhi gadaalkii dambe magaalada madiino ayuu ka guuray shaamuuna u guuray markii nabiyullah la dilay sayd cuhmaan ibnu cafaan markii la dilay waxuu iska degayaa la yidhi baytulmaqdis ayuuna ku dhimayaa la yidhi sanadii 4aad waxaa lagu duugaa la yidhi beytu jibriil meel lagu magacaabo qaryo oo qaryooyinkii nabiyullaahi ibraahim uu joogi jiray ayaa meeshaasaa lagu aasayaa la yidhi axaadiista marka nabiga uu ka wariyey waxay ahayd 18 xadiis saxiixulbukhaariga iyo saxiixulmuslimka
hal riwaayad oo midaan aan ahayn uguma qornaa la yidhi Tamiim ibnu Aws. markaasaa wuxuu dhahay Tamiim ibnu Aws sidaan soo socota can Abi Ruqayya waxaa laga wariyey Tamiim Tamiimkaasoo ibnu Awsin Tamiimkaasoo addaariyi jadkiisa Daar ibnu Haani ah loo nisbeeyey radiyallahu canhu. Tamiim ibnu Aws xaggiisa Allah ka raali noqday qaale ana nabigu sallallahu alayhi wasallam qaale inuu yidhi addiinu diinku annaseexatu naseexa waaye. nabigu wuxuu dhahay sallallahu alayhi wasallam diinkan oo laga wada diinka islaamka waa annaseexa. marka addiinu annaseexa waa kalimatun jaamicatun macnaaha xiyaazu lxadi lilmansuus. waa kelimo jaamico ah oo koobaysa xadi lilmansuux. qofka loo naseexeyhayo waxay uu ku dheefsalahayo dhan kelimo koobtay waa. marka hadalkan mudaafaa ka xadfano addiinu cimaadu diini diinka tiirkiisu ama addiinu mucdamu diin waa naseexo. marna waxaa la xadaf meesha kuma jiro waa addiinu maxsuurun fiiha wa. maxaa yeele naseexada jumladeeda waxaa ka mid ah aliimaan billaah. waxaa ka mid ah aliimaanu billaahi wa rasuulih. ilaahay iyo rasuulkiisoo la rumeeyo oo la adeeco wixii ay dhaheen lagu camal falo. intaas wax ka dambeeya oo diin oo jaamicahu ma jiraan. marka naseexa ka dambaysa oo jaamicahu ma jirto. marka diinka ilaahay ayaa naseexo ah. su-aashaas marka hadalkaas markii nabiga uu sheegay qulnaa waxaan dhahnay u dhahay Tamiim ibnu Aws liman yow naseexa u yahay. qulnaada marka waxaa waaye macshara saamiciin dadki markaas nabiga dhegaysanaya ee uu la joogay ayaa waxay dhaheen liman hiya diinku yow naseexa u yahay ilaahay rasuulkiisiyow. qaala wuxuu dhahay nabigu lilaahi ilaahay ayuu u yahay walikitaabihi ilaahay kitaabkiisa u yahay walirasuuli ilaahay rasuulkiisa u yahay walia'immati lmuslimiina muslimiinta hogaamiyeyaashooda ayuu u yahay iyo wacaamatihi muslimiinta caamadooda. wuxuu naseexo u yahay diinku lilaah. diinta islaamka ilaahay naseexo u tahay. maxaa laga wadaa? waxaa laga wadaa ilaahay in la rumeeyo ayaa diinta islaamka ay sheegaysaa. ilaahay shariig laga anfiyo, cibaadada asiga loo khaliso, daacadiisa loo istaago, macaasidiisa laga joogo. sidaas ayuu naseexo ugu yahay. qofka ilaahay adeeca in la xiriiriyo, qofka ilaahay caasiya in lala collaytamo, sidaasuu kitaabka diinka ilaahay naseexo ugu yahay. walikitaabihi kitaabkiisau naseexo u yahayna waxaa laga wadaa qur-aanka kitaabka ilaahay in la rumeeyo ayay diinta islaamka ay qabtaa. waxa ku yahay in lagu camal falo, in la tacdiimiyo o la karaameeyo. waxaa aan la ogolayn kitaabka musxafka meesha uu yaalo lugtaada inaad ka hor jeediso hadduuna meel sare saarnayn. kitaabka ilaahay dhulka inaan la dhigin ee kursi loo sameeyo, in loo istaago markaad akhriso ee aad dhammaysatoo kale la shumiyo, in la diibiyo la carfiyo ee udug la mariyo. saasuu naseexo ugu yahay. walirasuulihi ilaahay rasuulkiisau naseexo u yahay. sidii oo kale waa in la rumeeyo wax allaale wixii rasuulka ilaahay uu la yimid in loo rumeeyo, daacada rasuulka la laasimo, wixii uu amray iyo wixii uu reebay, sunnadiisana la nooleeyo, akhlaaqdii nabiga laga akhlaaq yeesho, aadaabtii nabiga laga aadaab dhigto, aalu beytkiisa ee asxaabtiisana la jeclaado. saasuu naseexo ugu yahay. walia'immati lmuslimiina muslimiinta imaamyaashooda ayuu naseexo u yahay. a'immadan waxaa laga wadaahaa la yidhi wulaatul umuur, madaxda diinta ee kitaabka ilaahay ayaa naseexo u ah. naseexo a'immada uu yahay waxaa laga wadaahaa la yidhi
dadka madaxda ah xaqa in loogu kaalmeeyo, in la ogeysiiyo wixii ay halmaameen, in loogu duceeyo inay salaax noqdaan oo ahlu salaax ay ka noqdaan, in loogu duceeyo. zakada in ayaga loo geeyo, awaamirtooda la qaato dadka madaxda ah haddii macaasi ayna ku jirin. laakiin haddii macaasi ay ku jiraan ayaga lagama yeelaayo. marka nabiga xadiid kale wuxuu ku dhahay man adaaca amiirii faqad adaacanii, amiirkayga qofkii madax aan ka dhigto madax ah oo ummadda madaxdooda qofkii adeeca aniga u adeecay. marka haddii laakiin madaxdu ay macaasi ama munkaraad ay dadka amraayaan laga yeeli maayo. maxaa yeelay nabiga wuxuu dhahay calayhi salaatu wasalaam laa daacata limakhluuqin fii macsiyati lkhaaliqi, makhluuq lagu adeeci maayo khaaliqa wax lagu caasinaayo. wa caamatihim walicaamatihim, muslimiinta caamadooda ayuu naseexo u yahay diinku. caamada waxaa laga wadaahaa la yidhi man lam yakun amiiran walaa caalima, qofkaan amiir ahayn caalimna aan ahayn, saasaa la yidhi. marka naseexo siduu ugu yahay, wuxuu ugu yahayaa la yidhi dadka caamada ah in lagu hanuuniyo wixii maslaxa ay ugu jirto adduunyadooda iyo diintooda, in loogu kaalmeeyo waxyaabaha muhimaadka u ah diinta islaamkaa sheegaysa. wuxuu naseexo ugu yahay cawraadka muslimiinta in la asturo, cawraadka muslimiinta in la asturo, waxyaabihii ay manaafic ugu jirto in loo soo jiido, wixii dhibo ugu jirana muslimiinta laga difaaco, in la baro dadka caamada wixii ay jaahil ka yihiin arrimahooda diiniga ah. saasaa uu naseexo ugu yahay. rawaahu xadiidka waxaa wariyay muslimun imaamu muslim. xadiidkan imaamu muslim ibnu xajaaj ayaa wariyey, wuxuuna ku wariyaalay oo saxiixu muslimka ugu qoray kitaabu liimaan markii uu marayay ayuu xadiidkan sheegay. alxadiisu thaamin haadaa maxaluh, waxaan soo gaarnay xadiidkii sideedaad. xadiidkan sideedaad waxaa wariyay cabdullaahi ibnu cumar bin khadaab oo aan hore u soo qaadanay taariikhdiisa qeybo yaroo ka mid ah. can ibni cumar, cabdullaahi ibni cumar xaggiisa waxaa laga wariyey radia allaahu canhuma ana rasuulallahi ile rasuulkiisa sala allahu calayhi wasalama qaala inuu dhahay rasuulku umirtu waxaa lay amray ou dhahay nabi muxamed calayhi salaatu wasalaam an uqaatila naasa dadka inaan la dagaalo xataa yashhaduu ilaa ay ka markhaati kacaan an laa ilaaha ilaah kale inuusan jirin ila allah, ilaahay maahane, wa anna muxameda nabi muxamed rasuulullah ile rasuulkiisa inuu yahay, wa yuqiimu salaata salaada ilaa ay ka oogaan, oo wa yu'tu zakaata zakada ay ka dhiibaan. saddexdaas waxau dhahay nabigu ilaa ay ka sameeyaan in la dagaalo ayaa lay amray. aamirku ilaahay waay. fa idaa facaluu dadku haddii ay sameeyaan ou dhahay nabigu daalika madkuurkaasoo saddexda ah, casamuu waa dhowreen minii aniga xaggayga dimaa'ahum dhiigyaashooda ay iga dhowreen, iyo wa amwaalahum hantidooda, ilaa bixaqil islaami islaamka xaqiisa maahane. casamuu minii aniga xaggayga waxay iga dhowrteen dimaa'ahum safka dimaa'ihim dhiigyaalkooda daadintooda, wa amwaalahum wa akhda amwaalihim hantidooda qaadashadeeda ayay iga dhowreen, ilaa bixaqil islaami islaamka xaqiisa maahane. islaamku wixii xaqa uu ku leeyahay iida taas ma jirto, waa laga qaadaa leh. wa xisaabuhum dadka xisaabkooda fii maa facaluuhu siraa wixay si qarsoodiya ku sameeyaan cala allah ilaahi korkiisa u ahaaday tacaala markiisuu sarreeyey. waxau dhahay cabdullaahi ibnu cumar radia allaahu canhuma rasuulka ilaahay ayaa yidhi umirtu an uqaatila naasa xataa yashhaduu an laa ilaaha ila allah wa anna muxamadan rasuulullah. an uqaatila naasada waxaa laga wadaa inaan dadka la dagaalo. amarkaanuna wuxuu ahaayaa la yidhi nabigu markii magaalada maka uu ka haajiray kadib. maxaa yeelay nabigu sala allahu calayhi wasalama bicsadiisi kadib
dacwada inuu dadka gaarsiiyo oo u digo asigoo aan la dagaalayn ayaa muddo dheer oo kula nagay magaalada Mako. waa isaga sabri jiray nabigu sallallahu alayhi wasallam wax allaale wixii dhib gaalada xaggeeda ka soo gaara. carab magaalada Mako, yahuudi magaalada Madiina sidaas oo kale. marka jamaaco oo asxaabta nabiga kamid ahay oo Cabdiraxmaan ibn Awf oo kamid ahay, Al-Miqdaad ibn Aswad oo kamid ahay, Uthmaan ibn Mad'un oo kamid ahay, Sa'd ibn Abi Waqqas oo kamid ahay ayaa gaalada dhibaatooyin aad u badan kala kulmay magaalada Mako intii la joogay. markaasay waxay dhaheen leeyri yaa rasuulallaah kunna fi izzin wa nahnu mushrikuun. magaaladii Madiina la tagay, magaaladii waxa lagu dhibay Mako. ilaahay rasuulkiisa oo anagoo gaalo ah ayaan izz iyo sharaf ku joogi jirnay. falamma aamanna sirna adilla. ma haddaan muuminiina qanay aan dad dulaysan qana ma iimaanka dulli noo keenay kuwa inaan iska dhicino noo fasaxay dhihi jireen. markaasuu nabiguna wuxuu dhihi jiray calayhi salaatu wasalaam kufu aydiyakum canhum fa innii lam umar biqitaalihim. weli dagaalkooda layma amrine aan sabarno. nabiga marka magaaladii Madiina loo haajiray dagaalkii loo idmay udina liladiina yuqaatiluuna biannahum dhulimuu waqaatiluu mushrikiina kaafa kama yuqaatiluunakum kaafa faqtuluu mushrikiina haythu wajadtumuuhum wakhuduuhum waxsuruuhum waqcuduu lahum kulla marsad. dagaalkii marka la fasaxay dagaalkii oo bilaawday ugu dambeyntii haddana inay dagaal ku bilaabi karaan loo fasaxay bilaha ashhur xurumka intaan hayn. kadibna dagaal mudlaqa ayaa la amray. nabiga asxaabtiisu marka dagaalka sidaas ay jamaaca ay ku dagaalami jireen wuxuu dhahay marka nabigu waxa la amray an qaatila annaas dan waxa laga wadaa halayri xadiidka lagu sheegay dadka bis waa ee jinni kuma jiro. nabigu sallallahu alayhi wasallam wuxuu ahay rasuul waa u ahay jinniga naftooda laakiin ayaga lagu qasbi mahayno wax hadda dagaal ula galay nabigu ma jirinaale oo lama sheegin isagoo la dagaalay. laakiin jamaaca kamid inay nabiga hortiisa ku islaameen waa soo aroortay. marka saddex arrimood haddii laga waayo waa noo dagaal u dhahay nabigu. waa shahaadateyn xataa yashhadu an laa ilaaha ila allah wa anna muhammadan rasuulullah. waa midda koobaad. midda labaad ويقيم الصلاة صلاة ويؤتوا الزكاة سدحداس فإذا فعلوا ذلك عصموا له. marka haddana saddexda qofka haddii laga waayo waxay ahaaday haddii qofku tawxiidka laga waayo ee uu gaaloobo uu gaal yahay waa dilid. wixii markaas axkaamahoo kale ku tacalluqa kuwii jizyada laga qaadayo iyo waxyaabihii kuwii dhimmi ahlu dhimaha ahay iyo wixii lamida baab kala waa. tawxiidka haddii laga waayo waa dagaal. salaadii dukadiida waa dil. zakadii u dhiibidiida xoogaa loo qaadaa dagaal baa ku geysa haba lagu dhinto. faidaa facaluu dalika casamuu minii dimaa'ahum wa amwaalahum. intaas haddii laga helo waxaa la yidhi markaa saddexdooda wixii qowla iyo wixii ficila iyo wixii labada isugu jira. shahaadateynku qowl waayaa le اعتقاد قلبنا وين لقى إنسان لكن قلبك لما أوجا واحد كجرا. فعل يا قول صلاة دا إسكوه فعل محل يا ناس كذا دي جودة إلا الداديو ين هنتزود لغات أي إجا إلى الشدان إلا بحق الإسلام. إسلام كحق سماهانه وقف السجون مسلمة هدي حق إسلام كوكوية ليو قف كادو قف دله ولا دله هدي أو هنتدي دا قعنتي جوين تيدي زاني جيول الرجميو يوحي لمده تاس إسلام كحق سواء وحسابهم على الله. حساب كود إلهي ويا الله فيما فعلوه سرا. رواه حديث كوحاوري البخاري وبخاري إيو مسلم بخاري يا مسلم. مركي حديث كان أركان الإسلام شن ما هينو سد حال وش ياقي صوم كله قمش ياقين حج كان له قمش ياقين صوبته حيث هيالا يحل قاس لبضوضو فرل ما هين ولا يري. أما هدي فرل هاي نفتاده صوم كقفك اللي ودي مايو حج كان اللي ودي مايو
maxaa yeelay xajka wujuubkiisu waa taraakhi soomkane qofka hadduu soomi waayo waxaa lagu ciqaaba xabsi in la dhigo raashinka iyo cabitaankana laga mamnuuco taa waay alxadiidu taasic hada maxaluh waxaan soo gaarnay xadiidkii 9aad ee kitaabka xadiidkan waxaa wariyay asigane saxaabiga caanka ahay oo abu hurayra radia allahu canhu abi cabdiraxmaan ayaa kunyadiisa la yidhaah magaciisana cabdiraxmaan ibnu sakhrin ayaa la yidhaah asiga iyo aabihiis magacooda 30 qowl ah ku jirta waxaa loo badan yahay ugu raajixsanaa la yidhaah cabdiraxmaan ibnu sakhrin in la yidhaah marka magaalada madiino ayuu yimid ayaa la yidhi sanadii 7aad rasuulka sanadka caamul khaybara la yidhaah sanadii 7aad nabigu sala allahu calayhi wasalamna khaybaro uu jiro markaasuu u aadaa la yidhi nabigu hortiisuu ku islaamay nabiguuna laasimay cilmigana waa ka bara jiray markaasuu waxa u noqday akharu saxaabati riwaayatan biijmaaci culamaa waxaa wariyey marka axaadiisiisu 5374 xadiis wamna dhahyaa la yidhi abu hurayra inamaa xadastu binisfi alaxaadiis allatii acrifuhaa axaadiistii aan aqiinay nuskood ayaan ku xadiis sheegay u dhahyaa layidhi waxau dhahyaa layidhi cabdiraxmaan ibnu sakhri axaadiis waxay ugu dhan ma jirin asxaabta ilaa cabdullahi ibnu camar ibnu caas maahane cabdullahi ibnu camar ibnu caasne waa qora jiriyey anuguna wax ma qora jirin marka taariikh dheer ayuu lahay si gooni ayaan taariikhda saxaabada uga hadli doonaa in shaa allahu tacaala saxaabigan marka wuxuu dhimayaa la yidhi sanadii 59aad ama 58 ama 57 waxayna aheedaale khilaafadii mucaawiya aakhirkeedii da-diisuna waxay aheeda 78 sano qubuuraha baqiic ayuuna ku duugan yahay waan abi cabdiraxmaan waxaa laga wariyey can abi hurayrata abi hureyre waxaa laga wariyey cabdiraxmaan ah cabdiraxmaan kaasoo ibnu sakhri wiilkiisii ah radia allahu canhu allah ka raadi noqday qaala inuu yihi samictu waxaan maqlay u dhahay rasuulallaahi kalaama rasuulillaahi ilaahay rasuulkiisa kalaamkiisi ayaan maqlay sala allahu calayhi wasalama yaquulu xaal uu leeyahay maa kii nahaytukum anigu canhu maaga xaggiisa aan idinka reebo wixii aan idinka joojiyo fajtanibuuhu maaga ka dheeraada nabigoo dhaha ayaan maqlay u dhahay wixii aan idinka reebo ka jooga bilkulliyan wamaa kii amartukum bihi maaga aan idin amro fa'tuu minhu maaga xaggiisa kala imaada ma stadactum waxaad awoodiin dacwada ayaaba intaas ka koobanba wax allaale wixii layska reebo bilkulliyan waa in laga fogaado wixii uu nabigu amrana wixii la awoodo awaamir wixii ah waa intii la awoodo calaa qadri daaca fattaqu llaaha ma stadactum ilaah ayaa yidhi ilaahay wixii intaad awoodiin uga cabsada waxaa laga wadaa wixii awaamir ah waxaad awoodiin kala imaada laakiin wixii nahyiya intaan iska celceli karaan iska celcelaa ma jirto toosaa looga joogaa fa inamaa in kale maahane ahlaka man qablakum ahlaka man duul waxaa halligay mankaasoo qablakum idinka hortiin ahaaday kahratu masaa'ilihim kahratu su'aalihim su-aashooda badideeda iyo wakhtilaafuhum khilaafidooda calaa ambiyaa'ihim nabiyaashoodii dushooda ay khilaafeen ummadii idinka horreeyey waxaa halliga u dhahay nabigu su-aal oo dan iyo daruuro ku kalifaysa aysan jirin tacanud ay u weydii jireen nabiyullaahi ciisa waatii ay dhaheen hal yastadiicu rabbuka an yunzila calayna maa'idata min asamaa ee nabi ciise uu dalbee malaa'igta ilaahay ay u keentay kadibna ay beeniyeen nabiyullaahi muusa asigane waa tii ay dhaheen reer bani israa'iil arina allaaha jahra ilaahay si toosoo cayaan ah noo tusi mar kale waxay dhaheen udcu lanaa rabbaka yubayin lanaa maa hiya waa markii baqaradii ay weydiihaayeen in allaha yaamurukum an tadbaxuu baqara marka
nabiyaasha dadka idinka horreeyey su-aashooda macdax adayga ah iyo khilaafkooda oo nabiyaashoodii ay khilaafeen ayaa haligtay. aniga wixii aan idin amro la imaada, wixii aan idinka reebana ka jooga. sidaasuu nabigeenu dhahay sala allahu calayhi wasalam. waana sida la isaga baahan yahay. qof walboo dadkaan ka mid a wax laga reebay iyo wax la amray iyo walax hadda aan cidu ka reebin oo iska mubaax ahaa jira. wixii la iska reebay oo ilaahay uu dadka ka reebay ama rasuulkiisa uu ka reebay aslanba loo dhowaa maayo. haddii laga aali waayane cuquubo ayaa ka dhalanaysa, cuquubadaasuna dadka ayay ku soo laabanaysaa. wixii la amray haddii la sameeyo faa'iidadii lagu sheegay iyo nicmadii iyo barwaaqadiyaa loo baxaa. waxaa la rabaa marka in la iska ilaaliyo waxyaabaha macaasida ah oo looga fogaanayo. wixii ilaahay uu reebay la samaynaayo, wixii ilaahay subxaanahu wa tacaala uu amrayna laga tegaayo, rasuulkiisuna uu amray. rawaahu xadiidkan waxaa wariyey albukhaariyu bukhaari iyo muslim. oo xadiidkan muslim iyo bukhaari labadoodaba waa wariyeen. alxadiidu xadiidkaasoo alcaashiru tobanaad haadaa maxaluh. xadiidkan asigana waxaa wariyey saxaabigii haddaan soo marnay can abi hurayra. waxaa laga wariyey radia allaahu canhu. abi hureyre allah ka raadli noqday qaala inuu dhahay qaala rasuulullahi ilaahi rasuulkiisa wuxuu yihi sala allahu calayhi wasalama in allaaha ilaahay tacaala amarkiisu sarreeye dayibun allihii dayib ah waaye. dayib waxaa laga wadaa munazahun can innaqaa'isi wa muqadasun can ilaafaati waalcuyuub. ilaahay subxaanahu wa tacaala waa dayib, macnaheedu wuxuu ka hufan yahay waxyaabihii naqaa'is ah, wuxuu ka dahirsan yahay aafaad iyo ceebo. hadda marka ilaahay hadduu dayib yahay laa yaqbalu aqbali maayo ilaa dayiba, ilaa camalan camal maahane camalkaasoo dayiban ee deeble. ilayhi yascadu lkalimu dayibudii oo kale waaye. waxaa ilaahay u koraaya kelimo oo dayibo ah oo xasana laa ilaaha ila allah waaye, iyo walcamalu saalixu camal saalixa. wa in allaaha ilaahay tacaala amarkiisu sarreeye amara almu'miniina muminiinta wuxuu amray bimaakii amara ilaahay bihi maaga ou amray almursaliina rususha la soo diray. wa in allaaha ilaahay amara almu'miniina muminiinta wuxuu amray tacaala amarkiisu sarreeye bimaakii amara ilaahay bihi maaga almursaliina rusushii la soo diray ou amray. mu'miniinta waxaa la amray iyo rusushu isku mid waaye. ma jira rasuul la leeyahay asiga cibaadaadkan iyo waxyaabahan dadka uu sheegay asiga lagama rabo, waxyaabaha uu dadka ka reebayo ka jooga leeyahay asiga waa iska samayn karaa, ma jirto. waa jiraan waxyaaba khusuusiyaad ah oo ilaahay uu rusushiisa ku kalaameeyey. laakiin caam ahaan faqaala ilaahay wuxuu dhahay tacaala amarkiisu sarreeye yaa ayuha rusulu rusushaanay kuluu cuna min adayibaat xalaalayaashii xaggoodii cuna. adayibaadkan waxaa laga wadaa rususha ilaahay waxaa la amray xalaal inay cunaan. wacmaluu camal fala saalixan camalan camalkaasoo saalixan saalixa. rususha ilaahay marka hadalkan u yaala amara almu'miniina bimaa amara bihi lmursaliina waaye. xalaal inay cunaan rususha lama amrino, muminiintana sidaasoo kale waay. wacmaluu saalixan rususha ilaahay ma dhahay, muminiintana sidaasoo kale waay. awda aayadda sheegaysa marka qur-aanka kalaa fasira yaa ayuha aladiina aamanuu ilaahi. wa qaala ilahi waxau dhahay tacaala amarkiisu sarreeye yaa ayuha aladiina dadki aamanuu ilaahiyo rasuulkiisa rumeeyeenoo kuluu cuna min dayibaati maa kii xalaalayaashiisi xaggoodii ka cuna rasaqnaakum baan idinku arsuqnay. rususha ilaahay waxau dhahay rusulay kuluu min adayibaat, muminiintane kuluu min dayibaati maa rasaqnaakum. maxaa soo baxaya in allaha tacaala amara almu'miniina bimaa amara bihi lmursaliin. uma bacdi dakara nabigu arajula nin ayuu sheegay yudiilu xaal uu dheeraynayo asafara, ama rajulkaasoo yudiilu safara safarka dheerayhay oo macnaha safar dheer wax ku yimid u eg. rajulkaasoo ashcatha ee basaasan, rajulkaasoo aqbara ee boor leh, rajulkaasoo yamuddu taaga yadayhi labadiisa gacmood ila samaa ilaa jihati samaai samada jihadeeda inta kee u taagaya. qaa'ilan xaaluya mid dhahaaya yaa rabbi rabbigeeyow acdinii kadaa wa kadaa waxeblaya waxeblayse. yaa rabbi rabbigeeyow
جنبني كذا وكذا وحبله وحبله إلهي وقد يري دهاي والحال ومطعومه كيس لغودي حرام حرام أو يهي ومشروبه كيس لعبسيين حرام أو يهي وملبوسه كيس للبسين حرام أو يهي والحال غودي لغودي في حال صغره انت أو يراي بالحرام حرام لو غودي جري وهو نبي الشاغنين بورله أو سفر وكموضة هدنا بورله بصاصا ادعيسا إلهي وحبلا إيجا جوج إلهي وحبلا إسير هاي وحو عنسيه هو حرام وحل أو عبو كبر بار حرام واي لبس كيس هو حرام انت أو يرى إله أو كدو غوبان حرانا لغسوكري كاس مركاسو وحودا نبغو فأنا سيده يستجاب له رجل كالغو أجيبه قف سيغران حرام كسميسان دع لغو كوريي كبر باري وليغي إسنانا سيقونا عنين ومضى لب نفته كان كاس سيده الدعاء لغو أجيبه سيده لغو أجيبه ولا بعيد سده ولا سهلا معها مركا وهلا يري إبراهيم بن أدهم أيها وحوصان مريال سوق بصرة نين عالم هو هاي ضدك ورنا مركا يسوي مدينة عليه مركا يسوي مدينة وحوده عليه وهيدا أبو إسحاق ما لنا ندعوه فلا يستجاب لنا محانا ودع الدعاء وضنا واحد عادين جاء جيبه أنا ويسن هيدا مركا سوى حوده يا إبراهيم بن أدهم والله لا واحد دعاء ليدن كجا أقبال لا عليه نوشة قال وعوده يعني لأن قلوبكم ماتت بعشرة أشياء طبعا وحياة قلبي جينا وكل دنتي قلب الدنتي هيسين كو وعوده عرفتم الله فلم تؤدوا حقه إلهي يتغانين حقي سنوا جود لا دهين ومد كوبات مد الله بعد وعوده زعمتم أنكم تحبون رسول الله وتركتم سنته وهذا شيكتين رسولك إلهي إن أدي عيشهين سنة سنوا كتكتين من ده سدحات وحوده قرأتم القرآن فلم تعملوا به قرآن كذافك كآخرين يسين كنا عمل فلي ميسين وحو دين كرهيبا كجوج ميسين وحو دين أمرها هنا مقعدين يسين من ده أفراد وحوده أكلتم نعم الله ولم تؤدوا شكرها نعموينك إلهي اسكعونيسين شكر جيدنا قد ميسين إلهياكم مهصن الحمد لله هذا مرده ميسين مد الشناد وحوده قلتم إن الشيطان عدو لكم ولم تخالفوه شيطان عدو نقويه أدليدهن مرنا خلاف يسين وهو إذن أمر الشيطان كأقبل يسين مد اللحاد وحوده قلتم إن الجنة حق ولم تعملوا لها جنة إلهي حق ونعمة يبرواغات الأليدهن ما شغي سنيسين قلبي تاسو كقال له ده مدة تدباد وحوده قلتم إن النار حق ولم تهربوا منها نار توا حق ددالو عذاب الدون إلهي عاسي وحلوغا على ده أسبابهن لا إمام يسينو ده مدة سديداد وحوده قلتم إن الموت حق ولم تستعدوا له لما شد يجيرد وحق أدليدهن من أديار جروب يسينو ده مدة السجالات وحوده انتبهتم من النوم فاشتغلتم بعيوب الناس ونسيتم عيوبكم هردنا مركات كعدين واقو ودين بريو عابها الضداداتكم مشغولة يسين عابهين نواه المام يسينو ده مدة الطبانات أو قدام بيسوا حوده دفنتم موتاكم ولم تعتبروا بها ضد إذن كدن تقبر جيسين منكو عبرة غادن يسين مركا هذا ضد كان دعاء وضع وأما أفر إلى باتنسى عمل والبد إلهي وخيرنا إله وراب نسي إلهي ودباتنا نقرب لليه إلا جاء أجيب إليه دباتوين كاساجرة رواه حديث كوحاور يا مسلم المسلم هل كاس وحنا وقول ماضي درس قل لحاد كتابك على 40 النووي هذا وبالله التوفيق والسلام عليكم.